هذا أصلا نقول كأسرع عادة حتى علماء كهذاش بس هذا اللي استاجي ولدي قاعد أيده وخلدان تح مركا أنت أيه سما في أنت صوف فارسته إن كهذا شو ده هذا أنت أنا قاب بس أودي لكن قاب خلدان يا الله قاتي لكن تذكيه حاجة على هذا واحد مثلا حمان وقاتل والله يرتى خفك مركو رالي النقطة وخفك مركو دم بسميه وأجي هي واحد خلدان أنا مالي أنت ماشي نشوف الإستو تبنصن حتى هذا صوت مليه دون سوري سببت وان والأجي خف والبقينه كله period أو ما هو وحارة يعني ذاتك وحاجة دي يعني سيدا أنا وده دين الإسلام كان لقطه صح سيدا أنا وده كعبة الجبية عملت بي انتو ضبضا وقاتين سامحوا عكر سيلو سمي عمل فإذا محي كودت حتى علماء القارة هو بني آدم وخف بني آدم supernatural وحي ما هو just no بني آدم عادي عمل وجست لكن أنا أسقوا بني آدم أخف كنا بني وحنا كل الدجالنا وعلم دينته برتي وقاصر رأي لكن the end of the day وقادن كرا إيو بولشيديو أو كنتي إن سحمه واركين أيجن محي وقادنا أيوة كفر سنة لقيا أبو خفكة إنه سببت سحمه لو قد بيه ضدك السوماليات وحي قاتل أنت بدن أنت حمات له قال كل سوق اليوم كومنتيجا قف أوري وحده يقرأ قف كان دوكو عايو طمان عايو ساسوني زمان أنا كل مرة نجعل هاي صح وضد أن ما شاء الله دين الإسلام كله شيء إلهنا وش كنا ونوي وش وكتاب إلهنا دين تصبري دين تصبري ما المجد عند هاي خالد إليه مساس لكن بلا أدنى عليه أنا ما أنت ولي ما هاي خالد سمي وحان مسميه أنا إيجا هاد بالقف ولا شين هادو إبكو دعو سيدا قرب بالاسين دونا مسوالي سكفوغين دونا صح ساسي إيجا هاد إيجا ما إهان فإيزو عيب تدمرك بناك كان وحانا ماشي كشي جرا وحاواي دمرك عيب واحد دمرك كصابسن ما أنت عيب منو خنيسو بري عيب منو خنيسو سنة صعدان عيب منو خنيسو هوين من مواي وحنا تسنيسو دات إني دلي كرت هوين مدنا عيب موها so dadkii u qaadanayeen gabadha maxay sameynaysaa baba because of you know diinta islaamka waa diinta islaamka laakiin dhaqan and culture waa two different waa wax kala duwan way kala duwan dhaqanka iyo diinta diinteena waxaan periodka waa iska normal waa just something normal laakiin dhaqanka in la ilaaliyo sama fiicna marka oo si dadka Soomaaliyeed marka la yiraahdo waxaa dhici karta adiga hadda danta adeeda waxa weey in dadka aad fahansi wax in uu jiro qaab loo falceliyo laakiin waxaa dhici karta dad xun inay bari intay u qaataan waxan iyada qaab xun u sameeyaan laga yaabo kuwaas waa laga yaabo way dhici kartaa laakiin eedahan faa'iido wada jideysay faa'iido somaho هدي أي شيء وقبض خلط كي ودوين أي لا قبضنا ألا فين فإذا هان وحي جاهد وعيجرين أو ما ولا شهدي بيك وقبل هاد ما لا حاولين كرا ما حاولين كرا سوى لودين كرا أنا والله هاي خفرت وحنا هاي دمرك والله بالله طلع دمرك احترام وين يأكتي ذاك الجوان هير أبوه انتو بدنا كومنت قداي عينين والله بالله طلع هالمر حتى يعني حتى دنقشمين لكن مالين واي دمر كاغوي واصحابتها لكن مالين تونين ماشي سو استاغ وحيد انا واحد مصطفى سفيان قند ايان كقاداو I don't know why ما دمرك وان جعلناhay hooyinkiin waa walaalaheen waa kulli marka barnaamijkaas isagana ma taqaan wax ku dhacay dadka laakiin faa'iido qaabkii ula jeed waxa qaab wacyi gelina la Allah hadii uu dhaco bulshada qaabkee ma taqaan oo falcelin lahayd hada weyn wallahi dadkina waxay qaataan wali waraga ani waxaan la yaabay what is your business ya like shaqadan maxaa meeshan is it your business like shaqadan miya ina kaga soo gasho like wax dumarka ee ka dhibaatada ka qabaan mise wax dumarka ka saabsan dad leedahay dumarkan difaacaya oo saan leedahay tana dumarka bayda idifaac idifaac aan mid kale to nimanka waan arkay ani ma faafinay like ma ka hadlama rabinaan taabto laakiin maanta gabdhaha Soomaali wallahi way dhibaataysan meel walbo way ku dhibaataysan laakiin dhibaatada qaar ayaa sukan mal Soomaali ma dhihi karo wax dumarka wax isku keeni kara ma jiro tusaalaha u dhow admaan leeyahay goorba baxday suuqa tagtay waxay tiri jaceelkayga tijaabin ninkeeda oo safar ku maqan oo u shaqo tagay yatiri iwa كاميرا الهور كان ولا قدوبي نيكي مكي لو عقي ور شقان ku jiraa soo jiraa markaas la yiri gabadha aja Aisha sheeg asal wuxuu yiri gabadhayda ani gurigan ku ogaa caruurtii haysay haday meesha imaataan iga furan tahay
gabadhaas miyay dhibis ay sukeen dib ma isku keenin waxaa su-aasha waxaa waaye gabadhan intay camera soo istaagtay ee gurigeeda kasoo baxday ee danteeda ay kasoo tagtay maxaa keenay oo ilaa meeshan soo gaarsiiyey laga yaabaa waxyaalo badan inay ku aragtay guriga sidii passwordka telefoonka xiranayo midda kale asagoo hadii gabadhaas ee password u siin ma waa khalad gabadha qabtaa ina password sax ma baha soma oo muxuu qabtaa la isku guursado maxaa waa reason la isku guursado waa in carruur la kala helo wey ee reason la isku guursado ma password si ma isku guursado waa ilmahaas miya maxaa dhaca waa ilmahaas iyo jaceylka la isku qaway laakiin ma ahan passwordka iyo telefoon kula maamulay ma dhici karto way dhici kartaa waana qasab haye passwordka telefoonka oo waa meeshii dhan maanta ma hoo jaceyladii hore geedaha hoos u fadhiisan jiray mogtahay maanta waa adduunkii wuxuu dhanaa muxuu noqday telefoon laga yaabaa inuu 20 reer leeyahay haddii soo ilaahay oon barin afar guursado ma taasaad kasoo horjeeda marka ayada ilaahay maya kasoo horjeeda laakiin waa inaa qofka inuu kula tashtaa uu tashay kugu soo darsadaa walaalay waan guursanayaa saan mogtahay laakiin inta iska soo kacay telefoon passwordka qari waxaan hadda habeen hore aniga wiilaa shaqaan Cabdiraxmaan iyo magaalada socday waxaan soo gadanayay waraqada imtixaanaad iyo waxaan diyaarsanaya soo gadanay waxaan arkay raggi Soomaaliyeed dhan wariil ma tagtiin miya la kudi banaanka wada fadhiyaan waa 4 saac weyn miya أو حاسس كودي أو المهودي أو دكتي ما قرسين because تمر قرسان باللاين رجع بناك فرديو تمر قرسان باللاين أقول رتا كوشة تمر كي بس واركين يقول يجري أقول كوشة رنتا يلا عاق عن لقاء كريم رنتا كوشة there is no way 30 plus قف سومالي وصدهم كده نعرف نين سومالي أو قول لها ويرتا دونك ويجوكان ما قرنا لكن هذا غيرت أدي تورين وحي لك قبل فيري كلين قري عمر ذهب أنت سجبحي lacag inta iga sameey ninkii waxa dhigay inuu soo inuusan awoodin laakiin uu awoodo inuu beesho eedan uma yeerayso way joogaysaa xagga marka inay banaanka fadhiyaan maxadidi marka ay mataqaana kulli ay noqdaan iska bulo no yartahay maanta qoni Soomaali oo 30 plus sodon iyo wax jiro oo guursan oo reer lahayn wallahi way yartahay way wala xisaabin kara ku wilo odayaasha arkay 40 50 jireen iyo 70 banaanka wada fadhiyaan kuwaasna hablahooda waxay galeen ay qabeen TikTok bay galeen iyagana كنت في عن وقته لمكة ماشي ويا عين هوينك تساوي في ريال لها نكون المسؤولية اللي صار أيه أول بنانك فريان إلمي وركو أوجين أيه حاسكودي سيكو عاو بردي أوجين أنتو ماشي تقولي ما صف يبوت كنتو تروسي ما شهيكة فايزة قفك أنا أعرف تهدير بالصوب صو مع سمين لهن هاي فايزة هان أنا هانا horta qof dumarka ixtiraamo ixtiraam gana laakiin dumarka meesha u sarnaan haye meesha ya rabta yani afta ilaahi dumar ixtiraame haye waan jeclani marka dumarka mar laakiin ixtiraamka adigaas uu ku ixtiraamay dumarka aad u ixtiraam ka war marka midka la socdo midka la socdo waa ixtiraamaya ma ku fahmi laakiin you mean inuu qofka أيوة حاتر موقتها وإنه احترامه دمك دم بو احترامه تم بس كان صعدا واحترامه يا تم بس صعدا واحترامه يا كور مر احترامك كلا هي أنا احترامك كوجيدا لا خوف دمر هذا كل دقاش مس دبك كنسته يا دوان إنه دواني صح خوف دمر كمان هذا عاويتان وبانت ولا لو لا خوف أورا أنا جداركت أقرب سيس هي ما هي إسكاد والبينده كفيري ما كديناني وحاول احترام دمرك احترام هو يدي احترام ولا شيء احترام هو يدا احترام ولا لها احترام ساسا جعله يوقف علم له بس علم له هاي ونفتيس جعله ويحترامه ومخفك الاحترام كو هكذا خفك لك دقاله والله يرتان دقاله هذا تكون فيه because أنا وكين سنكر واحد كين سنة وحوين ما هو لعبتها قاعد شو قاعد جنكره وحوين ما هو صح إيه لكني qofku ma xagaranaysaa markuu like qofku wax markuu la'aan yahay bad garanaysaa inta u badan qofka inuu mustil dumarku waxa lagu xamtaa lacagta ay ka cararaysaa hada weyn laakiin se xaleeyahay ani dadka ma ihi dadka fiiri jaabka aqliga fiiriya qofka aqliga iyo cilmiga iyo quruxda qofka kartidiisa inuu dadka quruxda ka waran wala xashqadeeda ma ani ma waran ilaaha awurte hada weyn qofka duu ixtiraamayo وعقلي ليه كرتيده qofka soo dadaalay dadaalka ayaan fiiriyaa muqaalada pranking hada asamayso ma si wadi doonta mise inta ku egta ilaahay rajinta leeg bad kaleeda wallahi waxyaalo badan
ahaan ay qorshaysan koo ma aha labo ma aha saddex ma aha kursiweynayaasha facebook ka jiraan oo hadalkayga bedelaan diyaar ahaaba wax ka badan ay fayso soo wadaade aad weyn maxaad dhahaysaa bulshada marka ugu dambeyn wallahi waxaan dhihi lahaa sidaa markii hore dhahay dumarnimada ceeb ma aha waa inaa ku faantiin dumarkiina hooyadada ku faan walaalahaada ku faan meeshana horta intaas waa inta dumarka lala hadlaya ragga aan la hadli doono dumarka yani general ka dhigay dumarka hal ixtiraam dumarka hal ixtiraam shaqo weyn mas'uuliyad weyn wallah niga saaray dumarka hal ixtiraam هذا وين داود يال ودمحسنتين كاس waxay faa'iido oo ku barateen muqaalada brankiga kulay caawa muqaalka isaga ee saameynta badan yeeshay way ka jahil bixisay waxay ula jeeday iyadoo wuxuu ahaa in dadka ay ku tusiso in arrin ay dhici karto iyo qaab bulshada uga falceliso laakiin wax xumaan ah ama dhaqankeena ama diinteena dhibaato u keenayo kuma saabsanay laakiin dad baa si khaldan uga falceliyay wadmahsantiin